khilaafkii ka dhacay Soomaaliya isbuucan ku guda jirnay ee bishan November. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa saddex arrimood. Kow, waa maxay ujeedadii iyo hadafkii keenay Soomaaliya Sheekh Umar? Labo, yaa ka dambeeyay in dhicweedo muxaadaradii lagu balansanaa maalinka Jimcaha inay dhici doonto? saddex, Sheekh Umar nabiga miyuu u gafay ama caayay maxaa ka jira arrinkaasi? Intaasi oo dhammaystiran waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah Cabdimaalig Maxamuud Cali. haddaan u guda galo qodobka koowaad, waa maxay ujeedadii iyo hadafkii keenay Soomaaliya Sheekh Umar? intii lagu guda jiray bisha November waxaa dalka Soomaaliya gaar ahaan beledweyne gaaray gurmad lacag ah oo dal iyo dibadba ugu imaaday. Sheekh Umar iyo wafdi isaga la socday ayaa dalka Soomaaliya soo gaarsiiyay gurmad lacag ah. kadib Sheekh Umar wuxuu iclaamiyay in maalinka Jimcaha ku qaban doono garoonka Engineer Riso muxaadaro. si haddii loo fiiriyo Sheekh Umar hadafkiisu wuxuu ahaa inuu soo gaarsiiyo deeqda lacagta dalka Soomaaliya, laakiin hadafku muusan ahayn inuu ku qabto meeshaasi muxaadaro. safarkanagu wuxuu ahaa ujeedadiisu in aan qayb ka noqono gurmadkii loo sameynayay dadkii ay fatahaaduhu dhibaatada u geysteen. ujeedadayduna ma ahayn inaan muxaadaro dhigo markaan meesha imaanay, laakiin bulshada qaar ka mid ah culimada iga codsaday dhowr bal inala joog, khudbada Jumcadana noo jeedi, muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi. waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday. haddaan u guda galo qodobka labaad, yaa ka dambeeyay in dhicweedo muxaadaradii uu qaban rabay Sheekh Umar maalinka Jimcaha? Sheekh Suumo oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna nool magaalada Muqdisho ayaa duubay kilib yar oo ku sheegaya inaanan la aadin muxaadarada dhacaysa maalinka Jimcaha. su'aal, muxuu kaashay Sheekh Suumo? sidee buu ugu guuleystay inuu joojiyo muxaadaradaasi? bal la dhegeysto qayb ka mid ah kilibkii uu duubay maalinkaasi. ninka la yiraahdo Umar mawaaqiftiisa ila taqaanin anuguna aan ogahay, asigu naftiisuna ogyahay. waxaa ka mid ah in uu dadka Soomaaliyeed intooda badan oo ahlu duruq ah ama suufiye ah agtiisa gaala ka yihiin oo masaajidooda amiidadka la geey karin laguna duka karin ayuu goobo badan ka cadeeyay. waxaan leeyahay marka masiibada ka weynta waaye in qofka caqiidada laga fasahaadiyo oo qofka caqiidadiisa la fasahaadiyo. waa ogtii mawaaqifta Umar waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaygu ma karee sidaad ogtihiin xaqiraad weyn oo geystay. Sheekh Suumo wuxuu yidhi mawaaqifta Sheekh Umar uu aaminsan yahay waxaa ka mid ah kow, inuu Sheekh Umar gaalaysiiyey culimadii al-duruq ama suufiyada. bal dhegeyso Sheekh Umar jawaabtii uu ka bixiyay eedeyntii lagu eedeeyay oo ahayd inuu gaalaysiiyey culimadii suufiyada. waxyaabaa kale ee Sheekh Suumo uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in suufiyada aad gaalo ku tilmaantay, marka arrintaas maxay kaga jawaabaysaa? hasugo xaggee baan ku idhi xaggee suufiyada iyo dariiqooyinku waa gaalo aan muslim ahayn. isagaa looga baahaya ninkii wax sheegta albayinatu cala almuddaci buu nabigu sallallahu alayhi wasallam, yacni cidda wax sheegtay baa caddaynta laga rabaa. wadaadka ku warceliya waxaad tidhaahdaan waxaa lagaa rabaa caddaynta meeshuu ku yidhi xilliguu yidhi ayaa lagaa rabaa. ruux wax waa iska sheegan karaa, waa iska hadli karaa. wuxuu kaloo Sheekh Suumo ku eedeeyay inuu Sheekh Umar taageero afkaarta xag jirka ah. bal dhegeyso markana Sheekh Umar oo ka jawaabay arrinkaasi. wuxuu leeyahay sheekha wuxuu aad u taageeraya afkaarta xag jirka, marka isagoo afkaartaas taageeraya in uu haddana muxaadaro Muqdisho ku qabto waa khalad weyn. hadda wadaadku waxaan u malaynayaa war buusan hayninba, nin hurda ka soo kacayba adduunka lama socdo miya. afkaarta uu ka hadlahayo hadday tahay middan qoladan qullaadii xajirka ay qabaan, dadka keliya la dagaalamay annagaan ahayn ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii halis badan u galay, naftooda khatar loo geliyey, culimmadiinnadii baa lagu laayay sida logsoon yahay. marka wuxuu ka hadlaya ma garanin, malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira iyo mawaaqifta culimmada. iyo wuxuu kaloo Sheekh Suumo ku eedeeyay inuu nabiga Sheekh Umar xaqaray gaf weynna u geystay. maxaa ka jira arrinka? inta aan u guda gelin qodobkaasi, maxaa u dambeeyay khudbadii dhici rabtay maalinkii Jimcaha?
maalinkii jimcaha waxaa banaanbax furay dadweynihii ku noolaa Muqdisho kuwaas oo horkacayeen culimadii ka soo horjeeday dhicitaankii khudbada. banaanbixii maalinka waxay ku xadgudbeen Sheekh Umar ayagoo ku tilmaamay inuu yahay shakhsi gatay diinta sidoo kalena yahay mid caayay nabiga. ayagoo ku celcelinayay nabiga caaye dooni meeno, diinta gatay dooni meeno, culimo isku sheegay dooni meeno. nabiga caaye nabiga caaye nabiga caaye dooni meeno, nabiga caaye dooni meeno, caada qaata dooni meeno, culimo iska dhigay dooni meeno, diinta gatay dooni meeno. culimo la khayr Allah idin siiyo shucuurkiina ha muujinaysaan iyo mid ka mid ah dadkii hogaaminaya banaanbaxa ayaa khudbad soo jeediyay. waxyaabihii uu yiri waxa ugu cajiib badnaa: maanta waxaa jira banaanbax weyn, ninkii ka maqnaadana iimaan ma laha, nabigana ma jeclo. haddaba arrinkaasi ma yahay mid saxan? maanta waxaa jira banaanbax weyn oo ahlu duruq suufiya isku soo baxayaan oo magaaladana laga soo baxayo. hadda qofkii maanta ka maqnaada iimaan ma leh, nabi maxamedna ma jeclo calayhi salaatu wasalaam. buuq iyo qaylo badan kadib waxaa baaqatay maalinkaasi khudbadii, waxayna dowladda sheegtay inay dhici doonto khudbadda maalinka Axadda. culimadii waday banaanbaxa maysan rabin in xitaa ay Axadda dhacdo, iska badaaya maysan rabin in Sheekh Umar oo yimaado magaalada Muqdisho. Sheekh Umar markii uu arkay qaylada iyo dhibka wuxuu yiri muxaadaradii waan joojiyay, mana rabo aniga dartay inay dad badan dhib u soo gaaro. halkaasna waxaa ku joogsaday gabi ahaan muxaadaradii la soo qaban lahaa. in la joojiyo khudbada waxaa ku taageeray Sheekh Cabdi Xayi oo ka mid ah culimada Muqdisho soona dhaweeyay arrinkaasi. go'aan waxaan qaatay intii hatta iska dhaaf dhiig ku daatay ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku gali lahaa sababtay ayadana hala kansalo. ayadoo waliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku yiri maya. haddaan gudo galay qodobka saddexaad, maxaa ka jira in nabiga uu caayay Sheekh Umar? sanadkii 2007 bishii 4 ayuu soo noqday fiidiyoo oo Sheekh Umar ku sharaxayo xadiis saxiix ah oo nabiga ka sugnaaday. waa kan bal la dhageyso. wuxuu leeyahay Anas rasuulku sallallahu alayhi wasallam kaana yadkhulu ala ummi haram binti milhan. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid u soo gala caadi bay u ahayd inuu u yimaado ummu haram oo uu soo galo kadibna ay cunto iyo kolba waxay haysaa ay nabiga siisa salawaatu rabbi wasallam alayhi. وكانت حرام تحت عبادة بن صامت waxay ku hoos nooleedo ay xaas u ahayd saxaabiga la yiraahdo Ubaadatu ibn Saamit. fadakhala alayha Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yawman, nabiga maalin u soo galay sidii caadadiisa ahayd. maalin buu Haram u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam. thumma jalasat tafli ra'sahu salawatu rabbi wasallam alayhi. way fadhiisatay, nabiguna wuu ag fadhiistay. waxay bilowday inay nabiga timihiisa salawaatu rabbi wasallam alayhi ay ka gurto, injirta iyo qashinka iyo wixii ku jiray ay ka saarto ayay bilowday. fanaama rasuulullah sallallahu alayhi wasallam. fiidiyooga waxa uu dhaliyay wax badan, waxaa qaatay dad kale, waxayna ku dhex faafiyeen qeybaha kala duwan ee social media. ummad badan ayaa looga sheekeeyay inuu Sheekh Umar nabiga caayay. haddaba arrinkaasi ma sax baa? xadiis baan sharxayay warka anugu ma lahayn, laakiin xadiis nabiga ka sugan baan sharxay macnahaas iyo kelimadaasina ku timid. haddaa soo qaato tusaale, waxaa jira xadiis saxiix ah oo nabiga laga wariyay oo macnihiisu yahay ma jiro nabi ilaa wuxuu ahaa mid raacay ariga. kawaran hadduu sheekh sharaxo xadiiskan kadibna la dhaho sheekhan wuxuu caayay nabiga maxaa yeelay wuxuu ku sheegay ari raac. haddaba fahanka sidaasi ma aha. nabiga ari waa raacay, laakiin marka si kaftan loo dhahayo iyo marka xadiiska sharxayo baa kala duwan. haddii si kaftan aad u tiraahdo nabiyada waxay raaceen ariga, waxay noqonaysaa qalad aad ku dhacday. laakiin haddii la sharxayo xadiis, xaq buu u leeyahay qofka sharxayo inuu sidaas ku sharxo. mar walba waxaa loo fiirinayaa qaabka iyo habka uu qofku u yiri. ma wuxuu rabay inuu nabiga ku dhaleeceeyo mise xadiis ayuu sharxayay oo daruuro miyaa u keentay? sax ma aha in haddii adiga lagugu caayo inaad tahay qoosaar ariga raaca aad tusaale ka dhigato in ambiyadii horeba ay raaci jireen. arrintaas ma aha arrin bannaan. muhiimadu waa adigoo sharxaya xadiis ama adigoo ka sheekeynaya taariikhdii ambiyada. weligaa kuu kala saarnaadaan marka xadiis la sharxayo marka sida caadiga loo hadlayo. 13 iyo 14 bishii 2014 ayuu ka jawaabay Sheekh Umar inuu xadiisku sax ahaa, sidaasna loo sharxay.
macquul miya maadaama uu nebiga caayay inuu jawaab ka bixiyo mise mar kale u soo fadhiisto inuu ummadda u caddeeyo arrinkaasi bal dhegayso siduu sheekh umar u sharxay xadiiska markii dambe rasuulku sal alla lay wasalam wuxuu yidhi anas kaana yadkhulu calaa ummi xaraam binti milxaan fatutcimuh nebigu wuxuu u soo geli jiray gabadha la yidhahdo ummi xaraam binti milxaan markaasay cunto siin jirtay nebiga sal lay slam wa kaanat ummu xaraamin taxta cubaadat bni saamit ummu xaraam waxay ahayd cubaadat bnu saamit baa qabi jiray gadaal buu ka guursaday bay qaar leeyihin markaa ma qabin fadakhala calayha rasuulu llahi sal lay slam yowman faatcamathu sidii caadada ahaydee nebigu ugu imaan jiray bay maalmaha ka mid ah yuu nebigu ugu yimid markaasay cunto siisay uma jalasat taflii ra'sahu kadibna way fadhiisatay markuu nebigu cunteeyey kadib taflii ra'sahu iyadoo madaxiisa injirka baadhaysa ama injirka guraysa kelimada hoosta ka xariiqa marka waa meesha hadalku uu muxuu ahaayey ku biyo shuban doono taflii ra'sahu yaa dhahaya kelimada yaa cabiraya taflii ra'sahu maana cabiray anas baa cabiray sheekh cabdikariin xasan xoosh ayaa ka jawaabay asna wuxuu yidhi mufasiriinta qaarkood oo xadiidka fasiraya waxay ku sharxeen yacni madaxiisay baadhi jirtay yacni wax ma ku sugan yihiin mise kuma sugna bacdi kaloo ku fasiray sida wadaadka laga sheegayana waa jiraan haddii waxa weeye tafsiir xadiis ay tahay oo siyaaqa markaa waxa weye mas'alada sidaa culammadu ku fasireen inuu ku fasiraayo ay ku timi waa macduur mana noqonayso mid lagu ceebaynayo sida culammada kale ee shuraaxda ah qaarkoodba aan loogu ceebaynayn qofka qowlka kala doortoo yidhi waa taftiishe qamli in laga soo saaray yacni markaa xadiisku kuma tusinayana isagana dhibi kuma sugna sheekh cabdikariin wuxuu kaloo sheegay in carabtii hore injirtu agtooda aysan waxba ka ahayn sheekh umarna sidaas oo kale ayuu u caddeeyay arrinkaasi sheekh umar markii uu injirta wax ka sheegaya asigoo fiiriyey culimmadii hore carabta waxay ku tacriifiyeen wuxuu yidhi injirtu waxay ka dhalataa meel wasaq ah waxayna u gudubtaa meel kale ha ahaata nadiif ama wasaq laba xaqiiqo oo ku saabsan sheekh umar kow sheekh umar keligiisa sidaas axaadiista uma sharxin haddaba maxaa lagu haystaa labo dad badan ayaa habaaray oo yidhi allo afka gogo maadaama uu caayay nebiga muxuu alla ugu aqbali waayay habaarkooda ilaa nebi caayo ma noolaadee gebagabada barnaamijka ma wanaagsana in la caayo la aflagaadeeyo culimmada waana arrin laga fiican yahay waxaa lagu haystaa muuqdaan ama yaysan muuqan weligaana wax baar oo wax xubso hana ku ekaan wax laguu sheegay